على دار إيو فاتشن قال إيو نمكاس أو متقنا أنا داري إيو هذا كواس موياني وحكاس أنا واحد دريم كرني شغالة قصبنا يلا هذا وأركيدين كوا جد كحورنا كفريني كوا داو عني داونا سودين أنا قد كأني يدقان كأني بابيان عيدا كأني متقدمات توجستن الشباب أساس كده عد كستاد جيشتو إنك اللي عبد الله عسام صومالي مأهين عرب أوهاي وحكوا رجلي يعني كدارنا إلا هذا الجلو كدارنته يبقى عليه حد واحدنا كبكودو كذا مراس قليل وشاكيو أضيار وغسلانيو وحبا متقامها شيء تمسره كهر حمر شواست أنتي هوقل أنتي دلالك كرنا دلالنا وهاي أنا ببادلنا نفتي متقامال كشعب الصوماليين إذا قال عدو وقدمنا إلى أنه يقولي عدو جينا ده وحي فرعين وحينا قلعي وجدوا هذا دلك عدو أي وقتي أي كوان أو أيام هرشيدا لابلكعة أي كسر قرن دجاندي إندب لوجو صار أو دب لوجو سفايو مركه هو قال قرشة سوا هاي ما يدعون دجالهم قلنا دجال ما هين لو قال فاد دجال قرشة استراتيجية حاجة ترى سماري ودجيو هاي سيرون عيد هذا الناس يسعدوا ولي قبيعة حد عيدك وعين دولوي عيد ما أرولس هو مريشي عيدك وعين دولوي وقت جود الجوب بحياة تعبر كود يقال كود مرك أول ما هاد علني بحد الصوماليات والطريق حدث وأيوه الرأي مدحوينها بسيارة قاشان دقة قدام أنتي كقيب قاد اسمه عيد كاس ماي مش نما كاس عدو جاهو وجددوا دوان نما وح مبدأ عن كسر دجال كود وجدد وصلنا دجال كود بوندة لبض بوندة بير هذه بوند واحد جران تضيف تمكي تيك على حوجة الصومالية دي الدولة دي وقت قاس لسان لبعتني يو لبض كوي لبعتني كوي لبعتني لبضي أو خرنتي $1 مليون بعد قرش كا نوي دمية الشعب كانوا يقحيين بشي مارسو أي كسر الشعب كمجال هذا يجوا جوري كاستو حتى بس قلب ما يصدقين كده قلت جد بوندة دي إيه جران بريهدي يجيده تلالة أم بجيده مثلا عم بها أي جران أي كسر كرسي سكحي عيد والله هذا دجال كحوا هذا حالد من التريو هاي وحقول عايسي أو ترجل لي رجل إن حلقات فرط الجوي الشيء نقوله نقول ما تدجال كحقول هاي إن عادة أوجي ما نودوين إن فيلين هذا إسكندرية بدن السمايان قرحية بدن ولا شده قاري صورين إسلام كوجوجي عيد ماذا شده دي قاري وقرح هذا يمرشان كلكم يكون عسان يجوري دوين هم كبدن أنت محبوب ترويس ديجان كشيء سبع عدو ديجان كستو سومالي وصانك على حدود حتى هلا بيكويدو دبات أو تجا هذا بري عدو أيضا لسان أو صار ركي عدو قدام بيدي أو لركي عدو دارين هاي إسقالله فريهين أو عدو قاسو كسو دولي markuu yimid dadkii uu qaxiyay wuxuu dhistay baahashii wuxuu ka sameystay guri kasta dhufees boondadan waa jari asoo ujeedkiisu uu hay in guriyaha ay ku dhex noolaadaan goodkaas waxa uu jiraa ciidanku baran ku hakadaan dhinac bari oo anaga maadaama cadowgu dhinaca tarsiyada ay dhanka soo xigaan in galbeed aan loo gudbin ayuu dhanka shashay magaalada joogan dhinaca suuqanaga joogan shacabka dawjinta waa la sameeynaya kullu dawladdu waa hay'ad badan tahay hay'ado ku shaqaalaha jiro dawjinta shacabka Soomaaliyeed xooga dalkuna dekaalintii awood ka daba geysay maanada shaqaalihii qaranka ayaa kamid nahay oo difaac loo talagalay hadda dibadujintu waa soconaysa hadda waxa wadnaa sifayntii miinooyinkii aaseen guri kasto iyo geed kasto waxay ku xireemeen marka waxay dee ka saareen magaalada dhulka way dumiyeen xitaa guriyaha hoostooda in lagu noolaado way agtahay walaad saxaw shacabka sida la socotaba dhalinyarada Soomaaliyeed laba shay u kala goyn dalka Soomaaliyeed kuwa ayaga bam qarax ku dilaan iyo kuwa bankan ku soo xiraan way intaas way qof shabaab ah ee xornimo ku nool ma jirto gibigood ayaga iyo milishaanka u dagaalamo shirkadda fikirka qawaarijta ayagoo dalkan keenay ee muslimiinta gaalaysiiyay ee canshuur baad qaato oo cali dheer iyo faashan gol iyo nimankaas oo mataqaana ana deeriye iyo hadda kuwaas mooyaane waxa ka hoos soo waxa dareemi karaan shaqaale qasbanayaal moraalka ciidanka xoogda Soomaaliya waa hay dad waxa jira badan oo Facebook laho mataqaana qaaq iyo wax yiraahdo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed moraalkoodu waa bir waayo ciidan mushaar leh qalabaysan oo wax ka maqan jiran waa caafimaad leh darii dibad marka dagaalku xeelada dagaala marna hay marna low noqon karto oo dagaalka noocaas meesha lagu ciyaaro ma ku bad laakiin moraalka ciidanku waa hay oo doon hay hande sida artay cadow nool iyo qabtaan ay maskaxdooda joogto ay mataqaana ku xariyin geedaha ay baadanayeen kuwana wadada loo talagalay marsinay walaalkay markay waxaan filnaa wahay guulan filnaa on baa dhacday wax kala ma dhacay aad u farxay
farxadaydu aad ay ahaday hadda waa arkaydeen kuwa geeda ku xiran ka fureynay kuwa dhaawacanay daawada soo dhibayn anagoo dadkayna iyo deegaankayna ay baabiyeen ciidankayna ay mataqaan dhibaato u geysteen dawladnimada ay hor yimideen shacabka Soomaaliya ay gaaraysiiyeen boondooyinka ay jarayaan ayaa haddana waxaan ku dadaalayna deef farxad iyo naga tabato wax arma sameeyeen mas'uuliyadana gudaneynay in aan badbaadino kuwa geeda ku xiran maadaama yihiin dad qasbanayaal oo afduuban xurnimo aan lagu soo qarxin qarma yihiin shabaab waxaan dhigi karnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxay ka rabeen ka heleen abaal marin ay mataqaanaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada u geysteen walla ka abaal mariyay shabaab waqtigooda 200 waa gaaray 200 labaatan hor joogo jirto wax ajaanib way ku jireen anagu sida ayagu ay sameeyaan oo kala ma sameey karno Soomaali baan nahay mas'uul dawlad nahay waxyaabo badan sharci u diiday way kuma tahay inaan meedka jijidno inaan meedka duubno inaan bandhigno waxaan aragnaa Soomaalidu lowday qawaarij ah jid qaldan oo cadaabana ku baxday kuwa nolol kuwa yaani ay sheeg qaarnaba ay soo ogeynba oo ay qafaalayihiin Allah akbar xitaan yaqaan ku jiro aan faahfaahsan soo qori karo markay dadka noocaas meedkoodana aan duubno anaga oo jijidno xoogay waa dawladnimada u diiday afaran ku qabanay oo saddex dhaawac tabana oo caafimaad qowgeeda ku xirnay ugu carreen marka de dhammaan waxay ugu carreen goodki ku dhawaad 98 waxay ugu carreen goodki ugu diray anaga cafi ku runa cafu qadan oo ku asturno arrinta dawladda gacanta ku haydo aan talasaanayna talaskana gacanta gelini deegaanka asigana wax marsiin doona de wadadii ay sharciga u soo saaro oo ugu horeeyo iyaga in la daaweeyo kadibna de sharciga la marsiin maleeshiyaadku waxaan leeyahay cadawga Soomaaliyeed waxay dadka u sheegaan inay yiraahdeen ajaaniba Soomaali garab siido iyo ajaanib ha baxdo iyo shay ha baxo anaga waxaan maleynayaa shabaab asaaskooda cid kasta dhageysato ninka la yiraahdo Cabdalla Casaam Soomaali ma ahayn Arab oo hay waxay ku dheerigeliyaan ka daaraan ilaa hadda jilba ka daaranta iyo bu'aale xodda waa hayna waxaan leeyahay wax ajaanib ah iyo qarib iyo dhibaato Soomaaliya iyo shaab la rabaan ayaga keenay kuwa sharci aan lahayn ayaga ajaanib haayo ayaga boondooyinka jarayo ayaga horumar lahayn ayaga aabahayo hooyada gaalaysiinayo waxaan leeyahay kuwa maqla doon amba ahalkoodu oo ku jira shabaab ilmihiina unaha ka soo saarta raadiya wiil waarkiiska ma hadal weyno waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala dadka Soomaaliyeed ee dawladnimada rabo ee Soomaalimada rabo ee diinta Islaamka iyo dawladnimada inay mas'uulka yihiin aaminsan kuwaas ayaa ma taqaana insha Allah guuleysanayo adawgan waajibiyaan waxaan leeyahay ka soo baxa isa soo dhiiba dawladnimadina imaada leedaga ma lahan wasiir ka noqdo taliyaal ka noqdo ku soo beer dadkiina ilaahayna cafis weydiisato bakeena hadda diidaan hadda waqti yar oo aad Facebook iyo xamaray qabsanayo 26 iyo kaba ku dukado meelahaas qolay u sheekeeyo odayaal u qoslaaniyo waxba ma taqaan maahan 15 sano ka hor xamaray shabaasteen xamar dhame haasteen afmadowna way haasteen halkaas nima taqaan waxay joogeen xuduudka Kenya intana baalki buulaha way iga haasteen hadda maanta wax ku jiraan godad markay dib u dhac 15 sano dib u dhac oo good aanqarkay ku jiraan ay marayaan dal qabsan iska day markay dalka shaawalka saaraya ma si qabsanayaan imtixaan way dagaalku deegaano badan jiro cadawga laga saaray dib ugu laabteen laakiin imtixaan way sabarku alla nagu fiirina sabarkeen anaguna waa sabarnay guushan waa bilaabatay mar kale insha Allah guuleysayna ugu dambeyntii waxa ku weydiinaya kaalinta ciidamada cirka ka qaateen howlgalka ciidanka cirka iyo dhulka iyo nooc kasta iyo gomada ficil ciidanka xuduudda Soomaaliya hal tala soo leeyahay asigana wada qorshay howlgalka dhacay waxa waa howlgal ay qorsheeyeen xooga dalka Soomaaliyeed sidii la rabay in isku la jaahali anaguna de waxaan la rabnaa waxa jira waxyaabo midiya ay diidiyo wixii xeelada oo dagaalka loo galay waa military waa laakiin adigu waxay waajibaadku yahay tabaysan kaliya guusha aad la gaari oo arkaysan